jaalayaal maalmaheedu waxaan arkay dhalinyarada hal jeer facebooka markay boostiyada soo dhigaan waa akhriya aniga dadka oo wax akhriyaan aad wax u akhriya waa jeclahay commentiska boostiga dadku wax ay qabaan hada jeer inaan dheego oo magaraysaa fiiriyo aad baan magaraysaa jaalayaal ugu helaa marka isku kalsoonidaan rabaa inaan wax ka dhaho oo dhalinyarada qaar marka nin dhalinyaraha ayaa waxa uu soo qoray qoraal ah sida ay dadku kuu arkaan ayuu yidhi qoraal ayuu soo qoray wuxuu yidhi muhiim maa sida isku aragto waxa uu yidhi waa muhiim sida ay dadku kuu arkaan anugu dabcan waa ka ra'yi duwanahay aniga mar walba muhiim waxaan u arkaa sidaan anigu isku arko aniga waxaan isla ahay ayaa ila quman malaayiin hadday isku tagaan xataa aniga waxba uma arko say doonaa hay arkaan taas waa ra'yigayga dabcan asagna waa ra'yigiisa laakiin ra'yigiisa aadan u diidanahay waxaan u arkaa inuu yahay ra'yi liita dadku siday kuu arkaan haddaa ku fakerto dadku siday kuu arkaan waxay noqonaysaa liite had iyo jeer ku shaqeeya dadku siday kuu arkaan arrintaasina aad u badatay ninkan dhalinyarada qoraalka uu qoray nin kaloo dhalinyarahan maantana ku arkay waana sababta igu keentay inaan garanaysaa ka hadlo arrintan nin kaloo dhalinyaraha oo isna sidii oo kale iskula quman oo leh waa muhiim siday dadku kuu arkaan ee muhiim ma ahan sidaad isku aragto wax la yaab leh ugu noqotay yacni haddii laba qof oo dhalinyaraha iska daba qoraan oo magaranaysaa waxay u muuqanaysaa wax bulshadu qabaan waxa kanana yihiin magaranaysaa marka aadan uga xumaaday dabcan waana ra'yi gaabniyaan u arkaa haddaad tidhaahdo aniga xaliimo iyo geelle iyo faarax sida ii arkaan ayaa ka wanaagsan sida anigu isku arko waa liidnimo arrintaas marka aadan magaranaysaa arrintaas uga xumaaday niyaddaydina magaranaysaa way dishay waana wax laga xumaada dabcan waa aqli liita aqliga ku fekera dadka siday ku arkaan mar walba waa inaad isla saxnaataa dabcan anigu shakhsiyan sida aan ahaan rabaa inaan idiin sheego anigu mar walba dadka kale waxba uma arko dabcan qof talo uu kuu soo jeedi karahaya ku oran karaa sidaa iyo sidaa baa wanaagsan ama sidaa ha noqoto okay laakiin inaad isku aragto dadku siday kuu arkaan inaad mar walba muhiim ka dhigtahay waa ra'yi gaabni arrintaa jaalayaal si yaroo kooban haddaan uga hadalno sidoo kale wadaniyadda markii laga hadlaayo maadaama dhalinyarada aan ka hadlayno waxaan arkay inta badan dhalinyaradu isku qaldayaan wax wadaniyadda la yidhaahdo waxaana xusid mudan lamana barin dhalinyarada wax wadaniyad la yidhaahdo oo annaga marna kacaanan ahayn waayii dambena wax hadda arrintaas ka hadlahayaa ma jirin waad ka warqabtaan waxaa kaloo muhiim ah ciyaaraha hadda waxaan dhihi karnaa reer galbeedku dantay ka lahaan way gaareen oo waxaa arkaysaa hadda ciyaarihii Soomaaliya la daawanayo meel walba ciyaaraha la daawanaya dhalinyaradii oo dhan video waxbay daawanayaan garanaysaa ujeedka laga leeyahay la garan maayo maxaa wacay hadda dhalinyarada marka aragto la sheekaysan mid walba wuxuu leeyahay arrimaha siyaasadda ma rab inaan ka hadlo oo siyaasadii oo dhan baxeebaa looga dhigay yacni qasadkii uu magaranaysaa reer galbeedku doonayay wuu gaaray anaga 60kii iyo 70kii marka aad fiiriso ciyaaruhu waxay loo arkayay maalayacni inay yihiin dabcan aniga waxaan kamid ah dadka maalayacniga u arka sportiga xataa ma daawado orodka oo ciyaaraha la ordahayo wax wanaagsan baan u arkaa marra waaxid aad bay u fiican tahay marka ciyaaraha waxa ay noqdeen wax aad loogu badiyey waad aragtaa hadda Yurub aan nagu joognaa Yurubtan aan joogno galbeedka lagama xiiseeyo dad faro ku tirisaa taga dadka taageeraan wuxuu badiyeen dad dhalinyaro ah fan uma ahan ciyaaraha laakiin annaga sidii ciyaarahan lagu waday odaygii waayeelka ahaa ayaa laga yaabaa in magaranaysaa uu ciyaar daawanayo jaalayaal oo waqti ku dhuminayo marka arrimaha ciyaarahana waana la ka soo galay waana sababta keenaysa magaranaysaa dhalinyaradani lamaan rogo oo hadda ninka sidaan u fakarayo si dadku ku arkaan yacni nin muthaqafa ma ahan dadkeeni wax barta xataa liidnima ku jirta waxbuu bartay waxaas uu barto uu ku wanaagsan yahay maahane hogaamin uma tababarna uma jarabarna marka liidnimadii ayaa bulshadeena ku badatay jaalayaal haddii aan ka hadlo xagga wadaadada dhowr jeer aan YouTube aan leeyahay aniga barnaamijyaan ka hadlaa mararka qaar wadaadada waa ka hadlaa astan anigu nin suufiyaan ahay oo wadaadada wahaabiga aad uga soo horjeeda marka waxaan arkaa dhalinyaro ku dhahay hada jeer cilmiga diiniga malihida way wadaadka u radinaysaa waa dabcan waa su'aal meesha ku jirta wadaadka waa radina ani dadka wax soo bartaan ahay oo diinta islaamka bartay hadda waayigada markay wahaabiyadu yimaadeen ayaa waxa bilaawday wax la yiraahdo muxaadarooyin inaad aragteen mooyee muxaadaro ay qabanayaan dabadeedna su'aalaha la weydiinaya dadka su'aalaha weydiinaya waa dadka juhalada ah
waagu hore dadka Soomaalida juhal ma ahayn dabcan weligood dad juhala way jireen oo caama laakiin hadda ayay ugu badan yihiin waagu hore way yarayeen tusaalan ku soo qaadana aniga Axmed Tooyo xardheeran ka imid degmadeyda qofka quraanka bartaayo wuxuu ku khasbanaa jiray tafsiirka quraanka inuu yaqaano riyaalu saalixiinka inuu yaqaano minhaajka inuu yaqaano safiinu salaadka waxaas oo dhan bari jirnay yani aniga kutubaan akhrisan oo aan wadaad u hoos fariisan lama arko يعني waxaas oo dhamaan ka diyaarsanahay yani su'aalihi aan wadaad weydii lahaa wahaabi ah oo reed hoolaan u bartay qofkan kale laakiin caamada ahay markuu adiga ku arko wuxuu moodayaa sidiisoo kale inaad tahay oo adna wax baran Soomaalida marka waayidan marka wahaabiyadu yimaadeen waxa magaranaysa aad u batay dadka masaajidada su'aalaha ka weydiinaya oo muxaadarada sanadka ah suga laakiin anaga waaga hore suufiyada dadku waxay u tabari jireen waxaan ku bari jiray قرآن كان دمي جرني صفين صلاة صفين نجات كوسكو حرنا برجرنا 40 كتب كل هذا أجرومي وعربي كتب كتب في قاعدة جرين قرآن أو مقرنا تفسير القرآن منهاج ريال صحيح وحسن هو وضع خرست وحقول حسيت بوضع ضد اللي أنت يعني رد إيجانك أو الديان كيمين بقول كيف سديت نساس عنه قف أنا وحبرون دين الإسلام كأنا أخونه لكم يجرو ضدك مركب حكبت ضدك أساسي على قد يجري أساسي أيام كدسنا جرني marka in badan waxaan arkaa dad marka ii soo qoraya maxaa wadaad u radinaysa wadaadka ma aqoontiisa leedahay dabcan wadaadka aqoontiisan leeyahay wadaadka u mulo aad arkaysid muxaadaro wax kuma uu soo baranaya meesha aan wax ka soo bartay oo kutubada ah oo masaajidada iyo meelaha laga raaci jiro ka soo bartay wiilka dhalinyarada ah ee wahaabiga ah ee umul ku xiran meesha umul wax ka soo bartana ka soo baran maayo annagina inuu nala doodo rabaa hadaan diinta ka hadli tago dabcan waxa sid mudan anay cimaamad ma qaato naaga ma mehriyo meel ma fadhiyo wadaadan ah dadka ma iraado laakiin hadii adan gadaal u laabano ilaa moogta dadka day kugu dhagaan waa inaad sheegtaa wadaad dhameystiran aan aniga kutubana baran lama arko dadka i yaqaanay ama ila deegaanka ahayna waa la weydii karaa ee sida fiican i yaqaan qofka kor iga arkay ma ahan marka diinta marka waxa bilowday arintaas waxaan tusaale ugu soo qaadanaa aniga shakhsiyadeeda aan ugu soo qaadanaa dadka hore waxay wax u bari jireen si dhab ah laakiin hadda waa muxaadarooyin wadaadkan umulayraah iyo midkan kale kuwan kale ayuu dhamwada wahaabiyada ah ayaa magaranaysa dadka Soomaalida kutub ka akhrisan hadda waa aragteen dabcan dan wahaabiyada soo yar kooban uga hadlay Maxamed Cabdi Wahaabi ka yimaadeen Ibn Taymiyyah ku sii xiran marka Sacuudiga waa nimanka qabsaday asaga iyo Maxamed bin Sacuud waa tii Sacuudiga ay yimaadeen dabadeedna dadkii islaamka ahaa ee Sacuudiga jooga ku laayeen Xijaaz dabadeedna qabuurihii ay kala soo baxeen asxaabta waad ogeydeen intaasi waa aqoon yar oo kooban wahaabiyada hadda joogtaan waa taqaanaa kuwa dadka laaya waa qolada iltixaad ah jirtay dadka Soomaalida laaya dagaalada lagu hortay ka geystay bari gobolada dhexe gado xagga Marko iyo Muqdisho maxkamadii ku ahaa marka dadkaas oo dhan way hadda kuwa joogana waa qolada Daesh iyo al-Qaa'idada aad arkaysid iyo al-Shabaab wahaabiyo marka aad maqashid waa kooxda ugu dhibaatada badan ee dhibka u geystay ummadda muslimiinta ah meel walba ay joogaan jaalayaal marka arrintaas waxaan uga hadlayay dad badan oo ii soo qoray comments oo leh cilmiga marka sida weeyay dadka aan wax baranin iyo samoodi iyo dadka kale ay soo wax baranin waana sida ogaataan marka dad badan wax bartay inay jiraan dabcan ciyaarahan si yar oo kooban oo uga hadlay waa ogeydeen arrimahan ciyaaraha la xiriir dhalinyaradeenii in lagu dhuminayo oo laga badbadiyay ciyaar waa loo baahan yahay hal ordo laakiin ciyaar la siyaasadeeyay oo reer galbeedka ka dambeeya inay tahay ayaan aragnaa kubadda cagta dabcan anigu dadka sida arka ayaan ka mid ahay qaybta ugu horeysay jaalayaal kalsoonida ayaan ka hadlay wiilkii markaas soo qoray dadku siday ku arkaan uu ka hadlayay anna ayramay ee waa si aad isku aragto malaayiin qof sida u arkaan haday si kale ay arkaan aan waxba u maaro sidaan isku arkaa ila quman taasna ra'yigii ay ahayd jaalayaal aan ku biirinaynin ninka dhalinyarada ah ee magaranaysa Facebook inta soo galay comments ama post ku soo dhigay laba dhalinyaro ayaan ku arkay ninna maalmo hore aan ku arkay fikirka midna maanta ayaan ku arkay jaalayaal marka waxaan leeyahay Ramadaan Kariim waxaan filahayaa Soomaaliya xaggeedii ama bariga Afrika oo dhan in magaranaysa iminka la afuray annaguna marka saacad iyo xoogaa baa inoo dhiman marka waxaan rajeynayaa in aan Ramadaan Kariim idin raado waan idin salaamayaa jaalayaal